السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada caruusad bila ood uga barateen qurxinta caruusada. fadlan haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe saar, like-na noo saar. like-ta waxay noo noqonaysaa dhiirigelin. maanta waxaan doonaynaa inaan ka hadalo waxa weeyaan sida qaabka loo kobciyo amaba loo naaxiyo wejiga, gacmaha, loona qariyo xididada gacmaha amaba xididada lugaha dadka xididada uu ka soo baxeen. qaabka loona kobciyo wejiga waana hal shay ood kaga maarmi karto kareem oo dhan ama wax kastoo lagu sheego lagu yiraahdo waxbay ku naaxinayaan. meel kastoo jirkaaga dhuuban ama meel kastoo jirkaaga u baahan in la kobciyo waana ku kobcinaysaa. halka shayna waxa weeye xulbada oo wasaad wada ogtihiin faa'iidooyinkeeda. xulbadan halkan lagu soo koobi karayn haddaad cabitaan ahaan u isticmaashid way ku wada naaxinaysaa jirka oo dhan. nafaqana way ku siinaysaa, waana ku nuurinaysaa. timaha waa la marsadaa, wejiga waa la marsadaa, iyadoo wax jira wax lagu darsado. laakiin maanta kan aynu ka hadlayno ama dulucdan maanta aynu ka hadlayno waxa weeyaan qaabka loo naaxiyo wejiga amaba meel kasta oo jirkaaga aad u baahan tahay inaad naaxiso. aynu iska bilaabano. shayga koobaad waxa weeye xulbad. waxaad soo qaadanaysaa malqacad xilbada. imkaanu intan oo kale waxaan ugu talagalay labada qacmood oo keliyaata. haddaad gacmaha iyo lugaha doonaysid 2 malqacadood baad ka dhigan kartaa. haddaad meelo badan oo jirkaaga doonaysid 3 malqacadood baad ka dhigan kartaa. xulbadu way shiidan tahay. kadibna waxaad ku darsanaysaa saliid saytuun amaba caano kolbaad u kaad jeceshahay. keligeedna waad samaysan kartaa, waa cala ikhtiyaar. yani keligeed haddana waad samaysanaya okay way waad samaysan kartaa. haddii kale saliid saytuun iskaga dartana waad ku dari kartaa. markaas gacmaha waad marin kartaa, jirka meel kastana waad mari kartaa. biyo yar baad ku qoynaysaa. biyo yar baad ku qoysad ku qooshto iyo kaa fadhiisanin. haddii kaa fadhiisato sidan oo kale noqonaysaa. biyo yar baad ku kordhinaysaa. kadib wayna sidaas oo kale kuu soo baxdaa. iyadoo jilicsan ayaad marinaysaa meelaha jirka aad doonaysa inaad duubto oo dhan.